daawadayaal kusoo dhawaada calansiida media fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saar gobelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay xisbiyada mucaaradka ah ee hogaamiye xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed iyo xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur oo lagu dhawaaqay inaysan ka qayb gali doonin doorasho soo socotay cabsi weyn oo soo wajahday isla markaasina gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee xaliimo yaray ayaa sheegtay xisbiyada qaranka ee iminka isdiiwaan geliyay ama sida kuwa ugu waaweyn aysan doorashada ka qayb gali doonin haddaba sababta maxay tahay cabsi xoogan ayaa soo wajahday isla markaasina waa laga cafi qabaa waxay soo wado iyo filla Soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud iyo cabdiraxmaan cabdishakuur warsame 2021 ka qayb gali doonin doorashada soo socoto xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira ayaa maray hanaankii loo baahnaa waxaana siyaabo kala duwan loo diiwaan geliyay isla markaasina si sax loo diiwaan geliyay horaantii sanadihii la soo dhaafay gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Soomaaliya Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yaray ayaa sheegtay in doorashada ka guddi ahaan ay u diyaar garoobeen isla markaasina diyaar ay tahay waxay ka qayb gashay dood wadaag lagu qabtay Muqdisho saacado ka hor oo maanta ah waxaana ay shaaca ka qaaday ama shaaca ka dhigtay inay hanaanka doorashada u dhici lahayd iyo jadwalkeeda uu dhawaan soo bixi doono isla markaasina banaanka la keeni doono isla markaasina lala wadaagi doono ummadda Soomaaliyeed filla Soomaaliya ayaa wali cadeynin qaabka doorashooyinka ee Soomaaliya ka dhacayso 2020 iyadoo wax ka yar sanad xukunka uga harsan yahay madaxweynaha qaranka maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo gudoomiye xaliime yaray waxay madasha dood wadaaga ka sheegtay in xisbiyada dalka aysan ka qayb gali doonin doorashada 2021 ka sabab jirta in aysan wali dalka u diyaar ahayn nidaamka asxaab badan taasi oo macnaheedu ay u tahay wali dalka diyaar uma ahan asxaab badan isla markaasina xisbiyo badan diyaar uma ahan taasi ayaana keeni doonta inay xisbiyada ka qayb gali doonin laakiin shakhsi oo isku soo sharaxi doono xilka madaxtinimada ay ula jeedaa tani waxay dabarjab ku noqonaysaa xisbiyada jira oo ay laba ka mid ah hogaamiyaan madaxweynayaashii dalka soo maray oo waxa ka mid ah xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed isla markaasina dabarjab xoogan ay ku tahay taasina laga yaabo saacadaha soo socda in ayagana jawaab dhimbilo ah ay soo diraan macadda go'aanka xisbiyada oo ku jira midka cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ee ka qaadan doono hadalka ka soo yeeray guddoonka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Soomaaliya waxaa la yiri in muddo ah waxa lagu xamanayay guddigaasi inay u janjeeraan dhanka hay'adda fulinta Soomaaliya ee madaxweynaha farmaajo ugu madax sareeyo balse Xaliime Yaray ayaa iska bari yeeshay eedeyntaasi loo jeediyay guddiga isla markaasina sheegtay guddigan inuu madax bannaan yahay tani ayaa cadeen u noqonaysa inay iminka xisbiyada ku inay xisbiyada yiraahdo ka qayb kalimayso maadaama dalka u diyaar garoobin xisbiyo qaran ee dalka doorasho ugu soo qayb gala dhinaca kale madaxweyne farmaajo oo siyaad barre duqeyntii hargeysa ka raali geliyay shacabka reer Soomaaliland ee waqooyiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa waxa uu maanta ka dhawaajiyay inay ka xun yihiin wixii Soomaaliland ku dhacay 1988 isla markaasina raali gelin degdeg ah maanta diray duqeymihii diyaaradda militariga ee dawladda siyaad barre hogaaminayay ayay garaacday hargeysa iyo deegaanada qaar ee gobolka waqooyi ayuu farmaajo sheegay in ay ahayd wax laga xumaaday isla markaasina iminka raali gelin ay mudan tahay waxa loo baahan yahay garawshiyo iyo la iska cafiyo wixii xumaa ee dhacay wixii jabtar madow ahaa ee taariikhdeena galayna inaan saxno macnaheedu waxay tahay in dhibka ka dhacay waqooyi aanu cudurdaar iyo raali gelin ka sameeyno intii dhimatay iyo intii dhaawacantayna aynu nidhaahdo taariikh xun ayay ahayd wixii dhacay wixii halkaasi ka dhacay may ahayn ayuu yiri koonfur iyo waqooyi oo ku duushay wax qabiil ku salaysan may ahayn balse nidaam dawli ah oo markaasi jiray ayay ahayd duqeyntaasi isla markaasina raali gelin la bixinaya maalin ka hor ayay ahayd markii madaxweyne farmaajo uu kula kulmay Addis Ababa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi taas oo durba shaki ka dhashay wixii keenay inuu hadda ku soo beego raali gelinta reer waqooyi u diray isla markaasina oo soo hadal qaado duqeymihii lagu xasuuqay aniga oo madaxweynaha qaranka ah inaan cudurdaarkaasi sameeyo oo raali gelintaasi aan gaarsiiyo ayuu walaalaheen reer waqooyi idinkana aad ila qaadataan dhanka kalena dadkii dagaalamayay ee qoryaha watay iyagana cudurdaar ayaa laga rabaa taasi oo weli jeedo saraakiishii ka qayb qaadatay xasuuqii reer waqooyi ee iminka nool inay ayagana raali gelin soo dhiibtaan waxaa la sugayaa jawaabta ka soo bixaysa reer Soomaaliland raali gelinta farmaajo oo u diray maanta duqeyntii loo geystay deegaanada qaar ee 32 sano ka hor isla markaasina reer waqooyi ay gooni isku taagan isla markaasina ay taagan yihiin waxaanu nahay dawlad ka madax bannaan geesta kale ee Soomaaliya
maraykanka oo xayiraadii ka qaaday shirkadii hore ee shirkadii lagu magacaabi jiray barakaad oo iminka hormuud oo lagu haystay maalgelinta ururka al-shabaab. qoraal ka soo baxay waaxda maaliyadda maraykanka ayaa lagu sheegay in shirkadda Soomaaliyeed ee The Barakat Group of Company ee xawaalad ahaan u shaqeynaysay laga qaaday xayiraadii la saaray sanadii 2001 ilaa iminka xayiraad saarneed, laakiin iminka xayiraad laga qaaday. qoraalka ayaa lagu sheegay in la xiray dhammaan eedeymihii loo haystay shirkadda Barakat, taas oo la xayiray kadib weeraradii diyaaradaha ee bishii Sebtembar ee 11 sanadii 2001 lagu burburiyay daarihii mataanaha ahaa ee ganacsiga magaalooyinka New York iyo Washington ee dalkaasi Mareykanka. xayiraadda xilligaas la saaray xawaaladii Barakat ayaa waxaa sidoo kale qayb ka ahaa in lala wareego dhammaan dukumentiyadii iyo diiwaangelintii ay ku lahaayeen shirkadaasi caalamka. xogayaha maaliyadda ee Mareykanka Paul O'Neill ayaa xilligaani ku eedeeyay maamulka shirkadda Barakat inay malaayiin dollar ku gudbiyeen jirtay ururka weynihii al-Qaacida, walow madaxa shirkadda eedeyn dhowr mar ee halkaasi beenisay. shirkadda Barakat ayaa markii eedeymahaasi loo soo jeediyay ay dhowr mar iska diiday isla markaasina ay beenisay, walow markii dambe Mareykanka ay xayiraad saareen. qoraalkan sidoo kale waxaa lagu sheegay in xayiraadan laga qaaday ka sokow ay heli doonaan magdhow u dhigmanta faa'iidadii intii lacagtoodii xayiraada ay saarneed, taas oo balaayiin dollar gaari doonta. dhowr isbuuc ka hor ayaa waaxda maaliyadda Mareykanka ayaa waxa ay shaacisay inay wax dembi aysan lahayn shirkadda wakiilka Mareykanka u ah shirkadda Barakat ee Bragg Strikes ayaa lidhi, taas oo ugu dambeyn keentay in xayiraadii saarneed laga qaado shirkadda Barakat, isla markaasina iminka ay filanayso magdhow aad u fara badan maadaama xilligaasi ilaa iminka ay faa'iido fara badan soo xaray laheeda. dhinaca kale waxaa iminka kulmay General Stephen oo gaaray Garowe lana kulmay madaxweynaha Dani, isla markaasina Stephen oo ah madaxa Africom ee ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika. madaxweynaha Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Dani ayaa maanta qaabilay taliyaha guud ee ciidanka Mareykanka ee Africom General Stephen iyo wafdi uu hogaaminayo oo booqasho ku yimid magaalada Boosaaso. madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Dani iyo taliyaha ciidanka taliska Africom General Stephen Townsend waxay ka wada hadleen ammaanka guud oo la dagaalanka argagixisada iyo wada shaqaynta taliska Africom iyo dowladda Puntland ayaa lagu yiri. taliyaha guud ee ciidanka Mareykanka Africom General Stephen oo booqasho ku jooga Soomaaliya ayaa booqasho ku marayay qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka ka jira, waxaana uuna ka tagay shalay oo joogay magaalada Kismaayo oo kala kulmay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe, isla markaasina ay ka wada hadleen arrinta dardargelinta ah ee ka jirta la dagaalanka ururka al-shabaab, isla markaasina ay wax meel isla dhigeen. sidoo kale ururka al-shabaab ayay ku ballameen in halkaasi la cirib tiro, isla markaasina walow ururka al-shabaab ay ku badneen deegaanada ka jira Puntland, isla markaasina buuraha galgala kaliya ay joogaan. dhinaca kale Puntland oo soo saartay digniin culus oo ka dhan ah dowladda federaalka Soomaaliya. khilaaf u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka goboleedka ayaa sii xoogaysanaya, waxaana muuqata in Puntland ay digniin hordhigtay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaasina ay soo saartay. cali xasan axmed sabarey oo ah wasiirka warfaafinta Puntland ayaa ka dhawaajin dowladda ay bilihii ugu dambeeyay sare u qaaday faragelinta dhanka maamulkooda oo ay ku hayso nidaamka ay ku shaqaynayaan, wuxuuna uu sheegay inay horseedi karto dhibaato hor leh, isla markaasina macquul tahay dowladda Soomaaliya inay sidii ay burburtay isla markaasina loo laabto 1991. wasiirka wuxuu carabka ku adkaystay in Puntland ay dhowr jeer isku dayday inay wada hadal la gasho dowladda federaalka si loo dhameeyo mugdiga ku dhex jiro, balse ay dowladda ku fashilantay arrintaasi. wuxuu yidhi dhibaato ayaa ku imaan karta dalka haddii aan la tixgelin dastuurka madaxda dowladda, waxaana u soo jeedinayaa inay maamulka Puntland ka dhaafaan faragelinta, ayuu yidhi cali sabarey, taas oo ula jeedo inuu dowladda u digay, isla markaasina uu leeyahay haddii Puntland ay ka dhaafi wayso faragelinta 1991 xilligii burburkii Soomaaliya ayaa loo laabanaya. hadalkani ayaa imaanaya xilli waraysi gaar ah oo siiya TV-ga Universal ee ka qaadeen madaxweyne Farmaajo ku sheegay inuu dhowr jeer isku dayay inuu la fariisan doono Dani,
balse uu madaxweynaha dhowaan la doortay uu ka caga jiiday islamarkaasina uu ku sheegay madaxweyne farmaajo walaalow siciidan iyo hana dul marinay mar uuna soo maray islamarkaasina wuu ka caga jiiday wasiirkani ayaa hadalkaasi ka jawaabay digniin culusna u diray dowladda federaalk soomaaliya maxaa keenay in la yidhaahdo burburkii ayaa loo laabanayaa keliya waxaa ku filneed inuu dhaho madaxweynaha soomaaliya asiga ayaa tixgelin waayey wadahadaladii keliya laakiin inuu soo hadal qaado burburkii ayaa loo laabanayaa taasi waxay caddahay in halkaasi dowladda federaalk soomaaliya maamul kasta u digayo sidii dowlad kale ee ka madax bannaan soomaaliya